waxaan halkan saaka ka bilaabaynaa cashiro dhowra oo ku saabsan qoyska. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. عشرة هي سلسلة taxanihi waa barnaamij aan u duubay hay-adda la yidhaahdo المنهاج للإنتاج الإعلامي. كل نبي بشرا بأحمد وأنذرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وفرق اللباد أم 10 اللباد وإنه كغهل لإنه أرمها قويسك إيوه sida qoys wanaagsan oo islaamka iyo diinteennana waafaqsan loo asaasi lahaa ama qoysaskeena looga dhigi lahaa. cashirkeena maantana waxaan ka hadlaynaa, maadaama aynu soo sheegnay qoysku inuu asaas ahaan labada isqaba ka bilowdo, waxa ay habboon tahay marka la isqaadanayo ama qoyska la wada dhisanayo in qofba qofka kale uu ka eego, la isugu xisho. waxayna u qaybsamaan laba qaybood. qaybina waa asaas ma dhaafaana, qaybina waa dhammaystir hadday kuugu darmadaan ay tahay wanaag soo kordhay. waxaan ka soo qaadayaa insha allahu tacaala 5 ama 6 qadiyadood oon isleeyahay kuwa ugu muhiimsan weeye markii qoyska la dhisayo qofba qofka kale inuu ka eego. qodobka koowaad ee asaaska ah waa qofka aad qoys la dhisaysaay inuu qof ilaah yaqaana oo ilaah kaaga cabsanayo diin la noqdaa way. marxaladda nolosha xayaatadu maalmaha hore dadku malaa'ig bay ismoodaan. waxaa hadda loo yaqaano Mr. Right iyo Mrs. Right baa isguursada. isaga wax walba okay, wax walba waa okay, wax walba waa okay buu yiraahdaa. iyadana waxay tiraa wax walba waa okay, wax walba waa okay. markaasuu isna wuxuu moodaa gabadh malaa'iga inuu guursanayo meel laba ku khaldamayn. iyadana waxay moodaa nin malaa'iga inay guursanayso meel laba ku khaldamayn. hadhow laakiin dan iyo dabeecad baa la isula yimaadaa. duruufta noloshu mar waa la gaajoon, marna waa la dharki, mar cabsi baa la geli, marna xilli nabad baa la joogi, mar waa la xanuunsan, marna waa la caafimaadsan yahay, mar waa la isu cadhaysan yahay, marna waa la isu faraxsan yahay. xaaladaha duruufaha kala duwan ee maraya dadku waa inay jiraan asaasiyaad mabaadi ah oo kala hagaya, waa inay jiraan. qawaaniinta iyo xeerarka maamulka ma sheegayo. wax qofka damiirkiisa ah oo diin u celinaysa waa inay jirtaa, waxyaabaha qaarkood u diidaysa. qoysku wuxuu ku dhismi karaa ammaano in la is aaminsan yahay. qoysku wuxuu ku dhismi karaa qofba qofka kale inuusan ka shakisnayn. qofna qofka kale 24 saac kaamera kuma hayn karo, laakiin waa inuu damiir diineed oo rabbi looga cabsanayo waa inuu jiraa. xaaladaha idin soo dhex maraya qofka marna adaa jilicsan, marna isagaa jilicsan. qof xuduud ilaahay kaaga cabsanaya oo xaqaaga iska dhowraya oo inuu xaqaaga guto doonaya, xaqiisana cafin kara oo wax saamixi kara waa inuu jiraa. taasna asaas waxaa u ah qofku diin inay tahay ilaahay uu ka cabsanayo. dii xoolihii guriga in la musuqmaasuqo ama xaqii lagu tunto haddaan aakhari ilaahba laga cabsanaynin waa waxa qoysas badan dhibka ku haya way. walidaalika nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu leeyahay markuu ka sheekeeyey waxyaabaha la isu guursado wuu ku gabagabeeyey ragga markuu la hadlayay fadfar bidaati diini taribat idaaka. dumarun hadday isu kaa qabsadaan sifaadkooda ood isku wada weydo midda aan lagama maarmaanka ugu muhiimsan diinta way. waxaa labeeyoon diinta asaaska labaada oo aynan badanaa kala harin ama in la kala reebo aynan ahayn baan leeyahay akhlaaqda wanaagsan. diinta waxaynu uga jeednaa qof ilaahay ka cabsanaya
oo xaaraanta iska ilaalinaya oo xaqa dadka gudanaya wey waan xadgudbaynin waa bini aadam uu qaldami laakiin dadaalka uu ku jiro akhlaaqdana waxaan uga jeednaa qof macaamil wanaagsan oo dabeecadu dadkula dhaqma laha leh waxaa dhici karta qofku inuu diinta ku fiican yahay laakiin haydaarin uu yahay inuu haydaarin yahay waa dhici kartaa haydayn inuu yahay dhici karta qof aan dabeecad fiican lahayn inuu yahay baa dhici karta qof dagaal badan qaylo badan rabsho badan inuu yahay baa dhici karta waa dhici karta qof aan diin badan lahayn oonaa diin ugu dhaqan lahayn in dabeecad wanaagsan ilaahay siiya dabeecadda waa hibe ilaahay qaybay subxaana wa tacaala maadaama ay saas tahay diintuna damiirkii qofka celin lahaa wey dabeecadduna dulqaadkii dadka uu kula dhaqmi lahaa wey meeshan berri waa laysu caro waa laysu gaajoon deris baa iman qaraabaa iman martibaa iman qofkii dabeecadu wax ku wadi kara ilmaa iman dabeecadu wax ku wadi kara waa inuu leeyahy waa isu geed ku xidh ahayn hadday noqoto hebel horka eri iyo dabaka eri midna ma ogola dee nin qaylo badan oo maanta o dhan sawaxana oo dagaal badan oo feerhka iyo burku ka soo horeeyo iyo naag qaylo badan oo sawaxan badan oo deris ka seexan waayo oo qaraabo gurigeedii iman weydo soo martin weydo mixnad wey saas darteed qofku marka koowaad waa in diinta laga eegaa marka labaadna waa in dabeecadda la eegaa labadaba nabigu alay slam waa kula hadlay ragga guursanaya iyo dumarka guursanaya labadaba mar ragga xadiid abi saciid alkhudri laga wariyey baa wuxuu ku leeyahay facalayka bidaati اddiini wاlkhuluqi taribat yadaaka wuxuu yidhi waxaad laasimtaa dumar ka raadisaa oo lagaba maarmaana diin iyo dabeecad wanaagsan ragga marka dumarka lala hadlayana waxaa la yidhi xadiidka abi hurayra idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh hadduu idin yimaada nin diintiisa iyo dabeecaddiisa aad ku aamini kartaan gabadha u guuriya gabadha labadaa waa asaaska lafdhabartaa wey xoolaha way dhammaadaan waa la waayaa jamaalka iyo quruxdu dadkuba isku si uma yaqaanaan wax qof la quruxsan baa qof la foolxun dabeecadda wanaagsan haddaba maxay tahay diinta garanayo xaaraan la iska ilaaliyaa tiraahdeen dabeecadda wanaagsan 3 qodob bay leedahay asaas oo tiir u ah ee qofka laga eegayo kow waxaa kaful adaa dhibkiisa qof laga badbaadayo inuu yahay deris ka badbaadayo qofka nolosha la qaybsaday qoyska la dhisay ka badbaadayo qaraabadii iyo ahalku ka badbaadayaan qof dhibkiisa laga badbaadaya af iyo adinba waa inuu yahay kow laba والصبر على الأذى dadka dhibkooda inuu dul qaadanaya bini aadam la wada nool yahay xayaatada waa la isku qilci Soomaalidu waxay yiraahdaan ilka iyo carab ay isugu dhow ama laba daano waa isqooman noloshu qosol iyo farxadu weligeed ahaan maysa shahrul asalka waa la dhaafi marka la dhaafo qof dul qaad la waa inuu yahay qofkani qofka deriska dhibi qof qaraabaa dhibi qofkay nolosha wada qaybsadeen ee qoyska wada dhiseen baa ku qaldami qof qaladka dadka u dul qaadan kara waa inuu yiraahdo anu qof madaari maayo laakiin ninka qofkii agteeda soo maray ama qori ka jabiyay waa noo qac iyo qac sax ma tabaad xumo way taas labada marka laga helo waxa dhameystira badlu nada qof wax bixinaya waa inuu yahay dadka anfacay aqligiisa ku deeqay xoogiisa ku deeqay maalkiisa ku deeqay waa inuu yahay haduu yiraahdo anu qofka waan ka samri dhibku ii geysto waxna u dhimi maayo laakiin koob shaah agteeda laga kaban maayo galaas biyana layga cabi maayo taas akhlaaq wanaag maaha marka saa darteed qofku waa inuusan bakayl ahayn waa soo qof dabeecad xunna waa inuusan ahayn qof dul qaadan kara waa inuu yahay inta haddii la helo asaas reer ku dhismi karo dadna ku wada dhaqmi karaan waa la hayaa dadka dabeecad baa lagula dhaqmaa diintuna la dhaqankay xakamaysaa iyo xuduudda xaraamta iyo xalaashay ka ilaalisaa labada waa labada asaas ee koobaad ay tahay qaybta koobaad ee lagama maarmaanka inaad ilaaliso inaga qoyskeena haddaad fiiriso marar badan qayladiya sawaxankaba wadnaha ku xanuujinaya qaylada deris ka dhacaysa ikiwa dariiqa isku cayrsanaya celi oo mariyo dhagax tuuraya sax maaha taa qoys saxa maaha qodobka saddexaad ee asaasiyaadka tixgelinta mudan waxaa ka mid a aljamaalu bishuruutihi labadaa markaad hesho
haddii quruxna ilaahay kugu darood la heshaay ma axlaaha arrin fiican wey jamaalka iyo quruxda shariicadeennu ma diidin qofka dumarka iyo raggu labaduba inay tixgeliyaan ay qofka iska eegaanna wax loo baahan yahay wey laakiin iyada laga bilaabaa khalada kuna dhammaato waayo diinta iyo akhlaaqda wanaagsan mar walba waa inay joogto ahaato taa ka hadal ma leh gabadhii nin bay doonaysaa inay guursato diinta iyo akhlaaqda waa akhlaaqdu ka hadal ma leh waa inay tiraado intaa kadib waxyaabaha dheeraadkeen ragga ku kala dooranaya intaa wadaagtay baan iska fiirinayaa ninkuna waa inuu yidhaahdo labada iyagu ka hadal ma leh haddii akhlaaqda iyo diintii la helo qurux iyo jamaal inay ku darmadaan nabigaaba sheegays waxyaabaha loo guursado inay ka mid tahay tunkaxu lmaratu liarbacin haweenka 4 mid baa loogu xishaa waxaa ka mid ah lijamaaliha inay quruxsan tahay baa ka mid ahay waxaa kaloo ka sugan nabigeena calayhi salaatu wasalaam in ninka guursanaya uu dhihi jiray qoftaad guursanaysa soo arag bal inay ku cajabiso ilaan wax walba aragtiday ka bilaabataa undur fa ina fii acyuni lansaari shay-an buu ninku yidhi haween baa lagu siiye ood guursanaysaa soo maaha gabadh waayo waa reer ansaar iska soo fiiri buu yihi indhaha waxbay sibay ka yar noqdaan reer ansaareede hadhow sidan ma moodeyni intaad dhehi lahayd soo arag waxaadan aragid hadduu intaa dalaq kaaga soo yidhaahdo oo waxaadan filaynin kuu soo galaay inaad didaaba laga yaabo oo qalbiga muraayadu jabta soo maha fa inahu xaraan yudaman baynakuma taasaas dad isku qanacsan wey waxyaabaha soo maray waxaa ka mid ahaa aan la yaabay 1998 baan Nairobi airportka ka soo degay anoo Yurub ka yimid nin baan kula kulmay 2 ilmoodoo yar yara wato la ordaya ninkan hore aan isu naqiinay transit baan labada iyadaba ahayno Uganda iyo Entebbe Kampala aan u soconay meeshaan ku sheekaysanay cabaar wada joognay waxaan warsaa wuxuu jiraa waxaan kala soo cararay buu hooyadood oo Yurub joogta maxaa dhacay baan ku yiri intee labada ay dhaleysay hal habeen kuma qanacsanayn waxaan ku yiri maxaa sabab ahaa wuxuu yiri gabadhu meel dibadda ay kala joogtayo ana Yurub baan ugu horeeyay haye waan haasawnay haye sawirkaaga ii soo dir baan yidhi mid kale ii soo dirtay waan kaadi ahayn koow de maalinkii fiisiha aan u diray aan ismehersanay gurigii aan dhigtay ayaboodka ku sugayay bay soo degtay ag martay buu yiri anada qof kale aan raadinaya makhaayad bay iska fadhiisatay dadka dhan markuu dhamaaday baan iyadii intaan u imid waxaan walaalay gabar saas oo heblo la yiraahdo midin la socotay iyadii uu weydiinaya ago sawirka uu watay qofkan ismale sadarta sawirada marar badan xaqiiqada kama turjumaan aniga waayay tiri wadnahan baa la ii dhaafay wali maalinka sada qofkan madaxayga ku jiray ii muuqday qofkan arka waxa isaga dan ma intii mixnadii isla dabagadoonkii baan laba isu dhalay labadii baan kala soo cararay Yurubna ka soo tagay labada qof inay is arkaan waa muhiim waxyaabahan sawirada la isu diray kalarka intii la mariyo hadii la rabo la dheeraynayo ama qof kale sawirkii la isu hoosgelinayo rag iyo dumar bana sax maaha taa baahida ma wafiso jamaalka hal la eego haddii labadii qof xataa gabadhu ninka uu quruxiisu qancin waayo waxay xaq u yeelataa sharciga inay tiraa ninkan warqadayda haleega siiyaan ninkan saa u foolxun ma rabe isagoo diintiisa iyo dabeecadiisa ayna waxba ka sheegayni oo nabigay dhacday xilligiisa sallallahu alayhi wasallam Thabit ibn Qais ibn Shammas nin ansaari ah wuxuu ahaa nin isagoo nool janno loo ballan qaaday xaaskiisii ama Jamila binti Salul ha ahaato ama Habiba binti Sahl ha noqoto mid ka noqoto riwaayadku waa kala duwan yihiin mid kamida misal labaduba laba jeer bay ahayd labaduba khuluc bay ka qaateen laakiin midoodii ay ahayd midda qisada soo socota ay ka dhacday bay riwaayadku isku hayaan Thabit ibn Qais nin fool xun buu ahaa waxay leeyihiin riwaayadku ibn Maajihi wa kana rajulan damiman nin fool xun buu ahaa islaanta ninkeedii isaga haysatay umbay maalinkii dambe guriga daaqadiisa istaagtay isagoo rag la socda saa rag isaga u gaaban oo ugu madow oo ugu fool xun muraayadaaba jabtay gabadhii nabiga isku sii deysay laa ana walaa Thabit bayt aniga Thabit mar dambe is arki mayno maxaa dhacay ilaahay hadana ka baqayn markuu saa ii soo galo wajiga aan dhuf kaga tufi lahaa bay tiri maxaad ku haysataa waxay tahay laa ayibu calayhi fi diinin walaa khuluq
diinna wax kagama sheegayo dabeecadna wax kagama sheegayo waa nin diintiisu fiican tahay dabeecaddiisuna okay tahay maalna waxba kamayna sheegayn riwaayadka qaarkood oo Tabaraani loo tiiriyo waxay leeyihiin ma karihtu minhu shay'an illa damamata waxaan ku nacay fool xumada mana rabo inaan arko xaqiisana ma gudan kare ninkan iga fasax rasuulka ilaahay beerway inuu meher u siiyo xoolo badan ahayd bal ay muu celin kaasay tiri waanu celin waxna waan ugu dari xilli ziyaadada maya beertiisi war gabadhan iska fasax baa leeyahay awal khul'an fil islaam waa halkaas waxaa nabigu wuxuu tixgeliyay qofka damiirkiisa iyo dareenkiisu haddaan sharcan wax la tixgelinaya aynan ahayn gabadha xaqaa lama siiyeen isagoo fi khuluqin wa diinin ninkiya saadarteed labaduba waa tixgelin karaan laakiin ceebtu maxay tahay mushkiladu waxay timaadaa markii diin iyo dabeecad la iska halmaamo oodan diinna tixgelin dabeecadna tixgelin ee tiraada qofkan ma quruxsan yahay haddii dee qof aan qiimo dambaba ugu hooseynin uu yahay horaa looga dardaarmay oo waad maqasheen oo Yuusuf Barre dayar dhalinyaro oo shukaansi doonad ahayd ee dhalinyarada Soomaalidu reeraha la wareegi jiro gabadh baa lagu sheegay baa la shukaansan jiray buu kala dardaarmay wuxuu leeyahay gabadha qurux kaliya ugu xidhanine qiimaheeda kalena iska eega wuxuu leeyahay guduud looma raaco oo haween gabalba waa cayne isu gaadhay gabadha tiraa meelun baa go'ane gaboodleyda gaashidu ku taal labada goonyood ay geeyman tahay guuran kala aad laga yaabo erayada gabaygan qaar ka mid ah daayartu garan maayaan wuxuu guduud looma raaco oo haween gabalba waa cayn qurux kaliya looma raaco waa noocyo badan yihiin isu gaadhay gabadha tira quruxdeeda ilaa si fiican ay isugu dhacsan tahay meelun baa go'ane waxba ilaada gaboodleyda gaboodka waxaa la yiraahdaa wasaqda gaashiduna isla wasaqdan way gaashidu ku taal labada goonyood mid basari ah oo dheer oo qurux badan oo cad oo maryaheedu hareeraha wada wasaqaysan yahay oo geeyman oo maradu geeyman tahay guuran kala adag macna hadii aynan qiimihii guur quruxda dhameystiri lahayn hal ceeb buu sheegay inay nadaafad xunta hadii way caddo qurux badan maxay ku tari hadii gurigii daqsiga iyo dixirigii aan la kala nadiifinayn haddayba ay tahay naag af dheer oo dadkii iyo deriska iyo qaraabadii iyo adigiiba muf idinka siisa maxay tari ninkuna waa sidoo kaleeto sadarteed jamaalku waa inay ka horeeyaan diinta iyo khuluqda markaa kadib takmila iyo dhamaystir u noqdaan waxaa la yidhahdaa qamaan bulxaan baa gabadh aada u qurux badan buu xoolo badan ka bixiyey laakiin gabadhii waxay ku noqotay gabadh aada u fudud oo big ah dumarkana fudeedkana dumarku waa ceeb weyn buu ku yahay waxaa la dhihi jiray fadhiyaro geeliyo fududaha waan midna faa'iido male isagoo khaati billaahi taagan baa seedigii baa kusoo dheelmaday dhaqanna waxaan u lahayn haddii reexididkaa kuu yimaadaan dhibaad iyo xoolaa lagaa rabaa habeenkiibuu wuxuu go-aansaday la wada cashaynayay inuu ninkan fariin gaadhsiiye ah xoolihii horeen bixiyey baaba khaati ka taagna adna xoolo daba baad igu timid niyo adna intii hore ama lee maxaa ku dhaafiya tan yaa si kaa dhah walaashaana haddaad bidhaan iyo qurux ku ogeyd ganaag aada u fudud oon qiimo lahayn wey marka la cashaynayaa wax la cunayaa la isu sarbeebi jiray marka soomaalida dhaqankeeda waxaa ahayd sarbeebta gogol la isuguma dhigan jirin garna ma qaban jirin gabay sarbeeb uu bixiye marka wuxuu yidhi baalgoraya waa lagu ogaa inuu bidhaamaayo baalgoraya inuu bidhaam waxaa lagu ogaa jiray walaashaa oo baalgoraya ah qurux iyo bidhaan waad ka ogeyd baalgoraya waa lagu ogaa inuu bidhaamaayo berbera maalintuu tagay waxaa bi'iyey miisaani de berbera markii la tago waxbaa la kala gadanayaa kiilada saar sooma bir koloy ku tahay shayga fudud beesa lagu waaye boos waxaan jeclaadaba markaan baayacaan nacaye wada ba-an bini aadamkii midkaad waaye barataay ninka waa calacalay laakiin calacal sarbeeba wey ninkiina waa fahmay habeenkii haddii la seexday saq dhexuu guuray oo meeshaa meel waa ugu beryi karo oo wax dambe uu kusii sugi kara inuusan ahayn ninkiina gogol ma qaban weligood saasay ahaan jirtay sarbeebta gogol ma qabato sharcigeennana waa saa walidaalika culimadeen waxay wa fi lmacaariidi manduuxatu min alkadib sarbeebtu been bay kaa difaacdaa waxyaabaha xaaraanta xataa qaarkood baa sarbeebta la ogolyahay oo haweenka ciddada ku jira soo lama dhihin si cad waan ku rabaa guur ha u dhihina walaa junaaxa calaykum
fiimaa caradtum bihi min khitbati nnisaai sarbeebtu dhib ma laha laakiin ha caddaysan waxaan uga jeedaa inaan iraahdo labadaa nini waxay ka calaacaleen quruxaan qiimo ka hooseyn wax macnoo badanna aan lahayn laakiin haddii ay akhlaaqdii iyo diintii wada tahay way wanaagsantahay qoyska iyo reerka jiritaankiisana qayb bay kasii qaadataa labada qof inay isku qanacsanaadaan asaaska afraad waxaan dhihi karaa almaalu wey maalkuna wax tixgelintiisa mudan weeye markii akhlaaqda iyo diinta lasoo dhaafo nabiga alay slam wuxuu sheegay tunkaxu lmaratu liarbacin waxaa ka mid ahaa limaaliha xoolaheeda waa loo guursadaa waa ragga xaggiisa marka laga eego amaa xagga dumarka marka laga eegaay nin baa xil qaadaya rabbi waa la hadlay ragga nabiguna waa la hadlay sala allahu alayh wasalam qadaayaadna wuu xukumay guurka iyo maalka la xiriira ilaahay ragga waa la hadlo wuxuu yidhi walyastacfifi aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadlih guurku mutco keliya maaha mas-uuliyad reer baad qaadaysaa mas-uuliyaddii haddaadan qaadi karin adkaysoo soon iyo waxyaabo kala sameen nabiguna wuxuu yihi man istataaca minkum lbaa'ata ninkii guurka masaariiftiisa kari kara qofkan ha guursado ninkaan kari karinna waman lam yastatic fa calayhi bisawm soomka ha laazima fa inahu lahu wijaaw nabigana cala xilligiisii dhacdooyin waxaa dhacay ah faatima binti qays iyadoo ciddada ku jirta buu nabigu ku yidhi hadday ciddadu kuu dhammaato ila soo socodsiyo guurkaaga dambe markay kuu dhammaatay isoo sheeg intay ciddada ku jirtay laba nin baa u tegay kamid aha raggii u tegay mucaawiyata bna abi sufyaan iyo abuljahmi nin la yidhaha labadaa nin baa u tegayoo labada ninba guur bay kala hadleen ciddadii markay u dhammaateen nabiga u timid waxayna u sheegtay nimankaasi inay la hadleen wuxuu yidhi labadaba iska daa mucaawiyana iska daa abuljahmina iska daa midna dabeecad baa lagu duray midna waxoogay gacmo madhnaan baa lagu duray wuxuu yihi amaa abuljahm ninka la yidhaahdo fa rajulun daraabun linnisaa nin naga dil badan wey riwaayad qaarkood waxay ahayd falaa yadacu lcasaa can caatiqih hangoolka iyo burka halkaa u saaran qacdaa ka horeysa bu ninkaas ma dabeecad fiicna sababto waa nin dagaal iyo qaylo iyo dil iyo gacani kasoo horreysay iska daa isaga wa amaa mucaawiyatu fa sucluukun laa maala lahu shidan iskuma furto bu nabig alay slam isna iska daa ankixi usaamata bni zayd guurso halkaa waxaad ka garatay faatima binti qays nabig alay slam wuxuu ugu diiday labada nin midkood dabeecad xumo ninna waxaa lagu yidhi iska daa loo yidhi dee wuxuu isku furta ma haysta xaggee ku geyn laba qaawan isma qaada sowma iyada mas-uuliyaad maali a masa ma fuulayaan laakiin isaga mas-uuliyaad maali ah fooli gabadhii xuquuq bay u baahan tahay xuquuq dhaqaala yeelanaysa dib baan ka sheegi doonaa insha allahu tacala qaybo kamid a dii alla yihahdo laakiin hadduusan waxbaba qaadi karin gabadha waa lagu diidi karaa saa darteed in lagu yidhaha adeer wiil fiican baa tahay lakiin hadda gabadhii hadda waxba islama hayside bal horta wax soo raadso waa la dhihi karaa haddii loogu guuriyo wa ankixu layaamaa minkum wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum in yakunuu fuqaraa yugnihum allahu min fadlihi dadkii hadday aqbalaanna waa okay way fiican tahay laakiin xaq baa loo leeyahay gabadha in lagugu diido xoolo ma haysatid waxaad ku beelata ma haysatid gabadha meel looma dejin kartid laakiin gabadhiina ha laygu meheriyo luuqa iyo dariiqyadaana ka ugaarsan oo ka caydhsan meel lanama geyn karo dadku way diidi karaan sharcanna xaq bay u leeyihin marka waxaan rabaa inaan idhaahdo maalku xagga ragga marka la yidhaahdo gabadhu xaq bay u leedahay inay fiiriso cala al aqal xoog iyo xirfad iyo waxay noqotaba nin xilkeeda iyo mas-uuliyaddeeda qaadi kara inuu yahay iyaduna iska fiiriso ahlkeeduna fiiriyaanna waa loo baahan yahay haddii kale way guursaday way dhisan waaye guri buu geysan waaye waxba ma haystu yidhi oo shalay wax ma haystasamada ogeyn waa sheekooyin iyo dacwado badan oo qoysas isguursaday u burburaan arrintaa tixgelinteeda ay mudanta iyadana waxaa kaloo tixgelin mudan iyadana labada qof inay israbaan oon la ysku qasbin sax ma aha sharcigeennu gabadhu qof aynan rabin in lagu qasbo ninkuna qof dumar uusan rabin waalid iyo wax ku qasbaano ilaa guursa la yidhaahdo sax maaha waxay yidhahdeen soomaalidu qooley qoorqabad biyo kuma cabto
shimbirta qooley lahaa shimbiruhu qoorqabad biyo kuma cabaan ay lahada gabayna marka labada qof waa inay israbaan meelo badan buu nabigu ku tilmaamay sala allahu alayh waalihi wasalam ragga markuu la hadlayay wuxuu yidhi tazawaju lwaduuda alwaluuda fa inii mukaahirun bikum lumama yowma alqiyaama tazawajuu guursada alwaduuda kuwa idin jecel guursada dabeecaddeeduna qof caatifad iyo maxaba leh waa inay tahay dee haddayba cadhaysantaho inay ku rabin oy diidan tahay qasab ma laha mar kale gabadha qoyskooduu la hadlayoo wuxuu yidhi waalbikru tusta'mar wa idnuhaa sukuutuha gabadha waa in lala tashadaa aan horey u guursanin aamuskeedaa waa ogolaansho ah haddee raalli inay ku tahay waxaan rabto way aamusi waan rabaadaa ku adag gabadh hadday tahay ma raba laakiin hadday tiraahdo waa waxa loola tashanayo waa laga dayn hadday iyadu ma raba tiraahdo waa laga dayn sababtoo ah wax aynan rabin hadhow xuquuqdiisa ma gudan karto gabadhii thaabit ibni qaysna waa nacay markay tiri warqadeeda sii wiri nabigu sala allahu alay ali wasalam isaga markii uu nabigu gabadh guursaday oy ku tiri acuudu billaahi minka ilaah baan kaa magan galayna ilxaqii biahlika reerkiina aad buu yiri qofka wuxuusan raqbe iyo rido u haynin xuquuqda la xiriirtana ma gudan karo qoyskana qub iyo qac iyo dagaal kuma dhisnaan kara dib baan ka sheegi doonaa casharka dambe insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan iraahdo labadan waa inay israbaan intaa ka badan buu ilaahay tilmaamo wuxuu yidhi wajacala baynakum mawaddatan waraxma jacayl buu ilahay dhexdiina dhigay dee meelaan jacaylba jirin oo qasab la isugu geliyay qoorta sax maaha arrintaas sax maaha nabiga sala allau alay wasalam dhacdaa waqtigiisii dhacday gabadh yaroo soo kacday oo agoon ahayd baa laba nin baa isugu timid nin yaraha weyn waxoogayna haystuu ah ninna nin dhalinyaro ah laakiin aan waxba haysan buu ahaa adeerkeed ninka yaraha weyna wax haystuu la rabay uu ku riixayay iyadiiyo hooyadeedna xagga ninka dhalinyarada ah bay rabeen arrintii baa nabiga loo keenay sala allahu alayh alihi wasalam xaaladda waa la isqabtay marka kanaa awlaa ah oo gabadha ay rabtaa iyo may kanaa awlaa ahoo gabadha dhaqi kara ninka yarkaa waxba shilin ba iskuma furtee laba caamil baa is yaalla asaas kan dhaqaalihiibuu hayaa kanna raqbadii iyo rabitaankii iyo mawadadii baa jirta labadaa kee la hormarin nabigu hadal buu yiri sal slam lam yura lilmutaxaabiina mithlu zawaaj guur laba israbta wuxuu kaga fiican yahay male guurku laba isjeceloo israbta wuxuu kaga wiilku gabadha waa rabaa gabadhuna waa rabtaa labadaa israbuu guurku ku fiican yahay wiilkii yaraabaa loo guuriyey gabadhii halka waxaad ka garatay say shareecadeenna u tixgelisay haddii arrintaa la gudbo oo la tallaabsado oo gabadhii oo diidan ninka qoorta loo geliyo innaga ma badna wiilkoo diidan qoorta in loo geliyo ma badna inkastooy guurku dan iyo dookh yahay dib baan ka tilmaami doonaa ku gabagabayn doonaa kelimadaasi gabadhii xilligii nabiga dhacay sal slam gabadh baa iyadoo diidan aabbaheed wiilku nin ku meheriyey way soo dacwootoo nabad rasuulka ilaahayow aabbahay baa i meheriyey waana kaariha anna waan diidanay ninkan ma rabo fa khayaraha wuxuu yihi aabbaha nikaaxiisa waad fasakhi kartaa haddaad tiraahdo waan fasakhday waxba kama jiro bas waa lagu kala yaacay sababta guriga yaa gelaya ma aabbaha gelaya mise gabadha gelaysa waxaa guriga gelaya xuquuqda gudanaya reerka inuu dhaqan la rabo dee waa iyada haddaynan iyadii rabin shimbir baaba qasab waxa ku cabi weyday qof bini aadama qasab waxaa ku samey lama dhihi karo marmar way iska dhacdaa waxaadan aada raalli uga ahayn inay dan kuu geyso waxaa la yidhaha guurku waa dan guursi iyo dookh guursi waxaan ka hadlaynaa sharcigeennu dookh guursiga wey dan guursigu suwar badan buu leeyahay in waalid qoorta kuu geliyo waalidkana aad diidi kari weydo way dhacdaa inuusan kuuba gelin laakiin dan waalidka ay keenayso maalan hooyada oo kalea joogta qaraabi iyo gabdhi iyo ma jiraan gabadhay eedda u tahay ama habaryar u tahoodan aada u danayseen laakiin duqdan iyadunbaa hayn karta aada ugu xilatana way jirtaa danguursi kalaa jira oo kii jaabir oo aabihii markuu dhintay gabdho yaryaroo badan buu ka tegay
haween garoob oo ka yar weyn buu guursaday. Nabigu waxaad gabadhu guursan weyday markuu yidhi mid iyaga la eg haddaan u keeno waxba isma wadi karaan dan guursi waayo. dan guursiga waxaa kaloo kamida wax inagu dumaasha aan idhaano ilaa gabadhii dumaash ninkan unbaa kugu soo haray ama isagii la yidhaahdo gabadhan dumaasheeda aduun baa leh mana deyn kartidoo ilmay haysaa iyadiina lagu fasixi maayo la yidhaahdo dan guursi way kuwaasoo dhan kuwaa kama hadlaya aniga waxaan ka hadlayaa dooq guursiga markuu qofku rabitaankiisa iyo raqbadiisa iyo hadda guur saad rabtaad u guursan kartaa ay tahay baan ka hadlayaa. intaas waxaan kusoo gabagabeynayaa cashirkeennii labaad oo ahaa qodobada asaaska ay tahay in la tixgeliyo in kamida intii ugu muhiimsanayd. ilahi waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala khayr inugu kulmiyo inkaantaan kala maqan nahayna diinteenna iyo dunyadeenaba xifdiyo intaan cashir kale ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. ولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى الرحمن waxaan halkan saaka ka bilaabaynaa cashiro dhowra oo ku saabsan qoyska.